imagine what we could do together. Rihanna waa gabar asalkeedu yahay qaaradda madow ee Afrika balse haatan haysata dhalashada wadanka Mareykanka sanadkan ayay noqotay gabadha ugu taajirsan fanaaniinta heesaha ee caalamka waxaana dadka taageera ay ka samaysay malaayiin dollar 1990kii ayay qoys Mareykan ah Rihanna oo yar waxa ay ka soo heleen gud qashin ay iskaga soo fogeeyeen labadii waalid ee dhashay waxaana xusid mudan in Rihanna ay maxkamad saartay aabihii soo koriyay kadib markii ay sheegtay inuu magaceeda si qaldan u adeegsaday dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in wax dhaqaale ah laga sameyn karin fanka waxaana loo arkaa inuu fanku yahay mid waqti lumis ah oo dhalinyarada waqtiga ka dila yeelkeeda fanaaniinta Soomaaliyeed waa kuwa ku nool nolosha caadiga ah mana jirto fanaan ka taajiri fanka halka kuwa caalamka ay ku tamashlaynayeen malaayiin dollar oo ay ka sameeyeen dadka taageera muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa daawada shan xaqiiqo oo ku saabsan fanaanadan xiriirka dhexmaray iyada iyo Cristiano Ronaldo sababta keentay inay dacwayso aabaheeda iyo xaqiiqooyin kale waadan ka ogeen gabadhan reer Mareykan balse intaan aan gudagelin soo gudbinta muuqaalkan daawada waxaan ku xasuusinayaa haddii aad jeceshahay soo gudbinta muuqaaladan inaad muuqaalkan like saarto si share gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada sidoo kale qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb aragtidaada ku aadan muuqaalkan Tatiana Jeffersons of the world. Tell your friends to pull up. Thank you to the NAACP for all of your efforts to ensure equality for our communities. Thank you for celebrating our strength. Horaantii 1990kii ayay qoyskeeda ka soo qaadeen meel aan ka fogeyn guri ay deganayeen oo la iskaga soo fogeeyay Rihanna ayaana horaantii 2008 bilowday qaadada heesaha waxa ayna muddo yar ku samaysay magaca weyn waxa ayna muddo yar ku noqotay qof laga dhex yaqaan dunida hantideeda ayaa lagu qiyaasay 250 milyan oo dollar sidoo kale waxa ay ku caan baxday jileenka filimada iyo nashqadeynta dharka Rihanna ayaa sidoo kale waxa lagu xantaa inay xiriir jecel wadaageen Cristiano Ronaldo oo kamid ah ciyaaryahanada ugu caansan dunida uguna wax qabadka wanaagsan waxaana dhowr mar Rihanna ay warbaahintu weydiisay xiriirka la sheegay inuu ka dhaxeeyo iyada iyo CR7 waxa ay ku jawaabtay inay aad u taageerto xidiga horaantii sanadkii tagay ayay Rihanna maxkamad ku taalo wadanka Mareykanka ka dacwaysay aabaheeda oo ay sheegtay inuu si xun u isticmaalay magaceeda taa ayaana la yaab ku noqotay bulshada Mareykanka Rihanna haatan waa gabar lacag badan haysata fankana kula taageero badan fanaaniinta Soomaalida ma jira fanaan ka taajiray fanka hadaba daawada haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan waxaan ku xasuusinayaa in muuqaalkan like saarto si share garee oo la wadaag saaxiibadaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada ku aadan muuqaalkan